qisooyinka jacaylka iyo cishqiga ee taariikhda soo maray waxay ku ekaan lahaayeen khuraafaad haddii aanay sheekadani soo marin. buugaagta suugaanta iyo riwaayadaha ayaa xabsi u noqon lahaa haddaysan raadkan markhaatiga ka ah jiritaankeeda reebin. iyo xilli ay dunidu sawir qallafsan oo barbilow u yahay dagaal iyo cunfi ay ka soo gudbinayso islaamka, waxaa timid qisadan oo burisay waxa muslimiinta laga aaminsan yahay taaj maxal marka uu islaamku wax jeclaado. qarnigii 17aad iyo xilli sheekooyinka jacaylka iyo suugaanta laga curin jiray dhigaalada William Shakespeare. bandhigoodu waxa uu ahaa masraxyada reer Yurub. qiso ayaa bariga ka dhacday, jilayaasheeduna waxay ahaayeen muslimiin. dhacdooyinkeedu run ayay ku salaysnaayeen, masraxeeduna waxa uu ahaa Hindiya. curashada qarnigii 17aad gaar ahaan sanadkii 1607 waxa uu soo dhaqaaqay amiirka ahna dhaxal sugaha carshiga boqortooyada Mongolia muslimiinta Hindiya Amir Khurram inuu guursado haweeney ka soo jeeda qoysaska boqortooyada magaalada Aqra, waxaana lagu magacaabi jiray Arajman Bano Begum. hadhow Amir Khurram waxa uu noqonayaa boqorka Hindiya, magaciisuna waxa uu isu bedeli doonaa Shah Jahan. xaaskiisa darajada boqortooyada ayay qaadanaysaa, waxaana loogu yeeri doonaa Mumtaz Mahal. xiriirkooda meherka waxa uu sii jirayaa 5 sano ilaa uu yimaado sanadka 1612 oo ay shaacinayaan inay isguursanayaan. kadib waxaa bilaabmaysa qisada jacaylka ee labada dhinac oo sababaysa inay kala helaan in ka badan 14 caruura in ka yar 20 sano. inkastoo Amir Shah uu guursaday ka hor Mumtaz iyo kadibba, haddana jacaylka iyo kalsoonida waxa uu hayaa Mumtaz. xaasaska kalena kaliya waxay ahaayeen miduu dhidibada ugu adkaynayo xulafadiisa dhanka siyaasadda. kamuu joogsanin Amir Shah Jahan inuu xaaskiisa tilmaamayaal qurxoon u sameeyo. jacaylka uu qabo dartiis waxa uu u magacaabay boqoradda qasrigiisa isagoo ka dambeeyay magaca Mumtaz Mahal oo la micno ah jawharadda qasriga. waxa uu ka dhigay la taliyihiisa dhanka siyaasadda. sidoo kale waxa uu igmaday inay kala shaqayso maamulka dalka si aanay araggiisa uga fogaana. waxa uu ka xaysan jiray xataa xilliyada dagaalka. naanaysii ugu yeeri jiray waxa ka mid ahaa Malikatu Jahan oo macnaheedu yahay boqoradda caalamka, iyo Malikatu Zamzami ama boqoradda casriga ee xilliga. waxay ahayd mid aragti leh iyadoo laga dhageysan jiray dhammaan aqalka boqortooyada fikirkeeda. maxaabiista xukunku ku dhacay sida dilka iyo ganaxyada kale waxay u fidin jirtay cafis. boqor Jahan ma uu ku diidi jirin waxay codsato, xataa waxa uu ansixiyay inay soo dhisi karto guddiyo iyo xeerar ay kala qayb qaadanayso nidaamka boqortooyada. sida ku xusan sheekooyinka jacaylka ee halyeeyada waxay ku gabagabowdaa dhibaato. geeri ayaa ka xasaynaysa Jahan gabadha uu ifka ugu jeclaa, waxaanay ku dhimanaysaa da'da 38 jir, isaguna waxa uu ahaa 40 jir, si uu in ka badan 1 sano uga dhuunto aragga murugo darteed. inta dabadeed waxa uu ka soo baxay go'doonkii isagoo timihiisa ciraysteen, go'aansadayna inuu sameeyo taallo waarisa jacaylka uu qaaday Mumtaz. waxa uu qotomiyey dhisme aan wax u dhigma la heli karin taariikhda waqti hore iyo xaadirkan iyo mustaqbalkaba. waxa uu isu keenay khubarada dhismaha adduunka oo idil, waxaana uu ekeysiyey wuxuu u ekaa dhisme ka mid noqday 7 mucjiso adduunka ugu la yaabka badan. taaj maxal in ka badan 22 sano ayay qaadatay dhammaystirka dhismihiisa, isagoo la isugu geeyay qaab dhismayaashii xadaaradaha adduunka ugu qaalisanaa sida Farisiga, Turkiga iyo Hindiya. waxaana injineeradu u adeegsadeen qaabab kala duwan oo indhasarcaad ah, taasoo ka dhigtay raad qurxoon oo reeban. midabka kore ee marmarka ku samaysan dhismaha waxa uu isla midab rogayaa iftiinka maalintii. boqorku waxa uu meydka xaaskiisa u soo raray taaj maxal. xabaasheedana waxa uu ka sameeyey dahab ku daboolan jawharada iyo dhagaxaanta macdanta qaaliga ah, waxaanu codsaday in meydkiisa lagu dacalaaso jacaylkiisa marka uu dhinto, si uu isugu bedelo aqalkaasi meel ay gacaladu soo booqdaan iyo qiblada diyaways jecel. markhaatina ka ah qisadii jacaylkii ugu weyneyd ee soo marta taariikhda muslimiinta.